wuxuu gacantiisa ku dilay hooyadiis iyo 3 kale. Ma malaysan kartid sheekadan cabsida badan iyo suurtagalnimada wiilkan aadka u da'da yar uu ku geysan karo falalkan naxdinta leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta qiimaha badan kusoo dhawaada mar kale muuqaal kale. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe inoo saar, muuqaalkana like saar, qaybta hoose comments-kana inoola wadaag wixii fikriyo faala ah iyo dhiirigelinba. maanta waxaan ka sheekayn doonaa dhacdo horor ah ama cabsi ah. Thomas, Anthony iyo Leo waa 3 wiil oo walaalo ah. waxay la nool yihiin hooyadood oo lagu magacaabo Emma, waxayna degan yihiin magaalada Los Angeles. maalin maalmaha ka mid ah hooyadood ayaa go'aansatay inay isaga guuraan magaaladaas, waxayna u diyaar garoobeen safarkoodii ay ku tegayaan magaalada Alaska. waxay u soo dhaqaaqeen Alaska. intuu safarka socday waxaa hadal dhex maray carruurtii walaalaha ahayd. Thomas oo qalad u arkay safarkan ayaa yidhi, waxaan ka baqayaa inaan ku dhibtoono yeelashada asxaab cusub iyo iskuul cusub, ilama qurux badnaa. Leo oo u jawaabaya walaalkiis ayaa yidhi, aniga waan xiiseynayaa inaan yeesho asxaab cusub. sidoo kale Anthony ayaa dhexdhexaad ka noqday fikrada walaalihiis Leo iyo Thomas. Emma oo hooyadii dhashay ayaa ku tiri, waxaan rajaynayaa inaan wanaag kala kulanno. markan waa bilowga dhibaatada. waxaa la yimid gurigii ay degi lahaayeen. hooyadii ayaa tiri, wiilasheedii ma aragtaan, waxaan nimid gurigii. Thomas ayaa asna cod dheer ku yidhi, waxaan nimid gurigii. waxayna u soo codeen dhanka guriga. Thomas ayaa hooyadii weydiiyey sababta gurigan loogu magac daray Valeria the Merrill, balse iyadoonan ka jawaabin su'aasha. Leo ayaa asna weydiiyey hooyadii haddii ay suurtagal tahay inay soo bartaan deriska si uu u yeesho asxaab cusub, wayna ka ogolaatay hooyadiisa. wayna is soo raaceen 3dooda wiil, waxayna ku hormareen guri loogu magac daray gurigii Brown. waxaana erida ka furtay naag, waxayna u samaysay soo dhaweyn aad u qurux badan. halkaasna waxay ku barteen gabar lagu magacaabo Molly oo ah gabadh aad u furfuran, iyo wiil la dhaho James iyo sidoo kale labadooda waalid. markanna waxay soo aadeen inay bartaan deriskii labaad, guri lagu magacaabo Watson. waxaana ka furay 2 lamaano oo da ah, balse kadib way isaga soo tageen. waxaa la gaaray waqtigii qadada. 3dii carruur iyo hooyadood waxay fadhiyaan miiska qadada, balse waxaa meesha ka dhacday dhacdo aan horey loogu baran. Anthony, Leo, Thomas iyo hooyadaba waxay la yaaban yihiin siduu Anthony wax u cunayo. waa si aanan horey looga baran. wuxuu u cuntaynayaa sida qof 5 sano baahnaa. wuxuu Anthony dareemay in ay la yaaban yihiin isaga. Anthony ayaa cod cabsi leh ku dhahay, miyaanan horey u arag qof baahan oo cuntaynaya. wuxuuna sii watay hab cunidiisii bahalnimada ku jirtay. saacado kadib waxaa la gaaray xilligii hurdada, waxaana la isku diyaarinayaa in la seexdo. Leo sariirtiisa waxaa ku gogolan go'a midabkii uu jeclaa oo caddaanka ahaa. sidoo kale Thomas wuxuu haystaa midabkii uu jeclaa oo casaanka ahaa, si la mid ah Anthony midabkii uu jeclaa oo madowga ah. Anthony ayaa yidhi, maxay tahay midabkan foosha xun? wayna la yaabeen dhammaantood. Leo ayaa ugu jawaabay, gurigeenii hore waa adigii dhihi jiray, xitaa waxaan awooday inaan ku beddesho wax waliba si aan ugu seexdo sariirta madowga ah. balse Anthony ayaa dhowla cadeeyay, wuxuuna yidhi, maxaa ku jaban haddaan idhaahday madowga waa midab qurxan? wuxuuna ku soo eegay weji cabsi leh. habeenkaas waxay dareemeen cabsi, waxayna ku seexdeen si adag, iyagoo la fajacsan habdhaqanka cusub ee Anthony. markii la wada seexday, Leo ayaa dareemay in uu Anthony qolka ka baxay, sariirtiisana faaruq tahay. cidna muusan u sheegin wixii xalay dhacay. markanna waxaa soo iftiintay qoraxda, waxaana baryay waaga. waa subax cusub iyo guri cusub. hooyadii ayaa ugu yeertay carruurta si ay u quraacdaan. Leo iyo Thomas ayaa soo xaadiray miiska. hooyadii ayaa tiri, aaway Anthony, maad imaatid? waxay maqleen cod aysan horey uga baran Anthony oo leh, waa kana Anthony. daqiiqada kadib wuu imaaday, wayna quraacdeen. quraacda kadib Leo ayaa dhahay, aan aadno James iyo Molly oo ahaa ilmaha ay ka barteen deriskooda. wayna isa soo raaceen 3dooda, waxayna imaadeen gurigii lagu magac daray Brown. waxaana ka furtay naagtii, waxayna tiri, ilmahayga soo dhawaada. waxayna u tilmaamtay qolkii James iyo Molly, waxayna garaaceen qolkii. James iyo Molly ayaa isku dayay inay ka naxiyaan Leo, Anthony iyo Thomas. Leo ayaa aad u naxay, balse James iyo Molly ayaa ku qoslay. kadibna dhammaantood way wada qosleen, balse Anthony wejigiisa wuxuu u muuqday mid cabsi leh, waxaana ka muuqatay cadho xoogan. maalinkaas waxay la qadeeyeen reerkan. markii la gaaray habeenkii labaad, Anthony ayaa sameeyey sidii xalay oo ah inuu banaanka soo aado markay reerka seexdaan. subaxii xigayna waxaa la helay meydka odaygii deriska la ahaa ee Mr. Watson. xaaskii Watson ayaa tacsidiisa ku casuuntay wixii deris la ahaa.
markii laiskugu yimid dadka oo idil way wada ilmeynayaan markii laga reebo antoni wejigiisa waxaa ka muuqday dhoola caddeen. booliiska ayaa maalmahan ku howlanaa baaridda dilkii loo geystay maalin ka hor saaxiibkii Watson oo ay deris ahaayeen. booliiska oo la yaaban qosolka Antoni ayaa weydiiyey sababta. Antoni ayaa ku jawaabay, waxaan filayaa inuu duqnimo darteed u geeriyooday. maalinkii xigayna wiilasha ayaa maqlay cod nin oo qaylinaya. Leo iyo Thomas ayaa u soo orday dhankii qaylada, balse waxay la kulmeen Antoni oo haysta mindi, dharkiisana ay ka muuqdaan dhiig fara badan. aad ayayna u naxeen iyagoo dareemay cabsi fara badan. waxayna dhaheen, Antoni maxaad u samaynaysaa sidan? wuxuuna cod cabsi leh ugu jawaabay Antoni, haa, anigaa dilay ninkan, sidoo kale Mr. Watson iyo saaxiibkiis Mr. Coyle. iyagoo cabsanaya ayay ku dhaheen, maxaad u dilaysaa Antoni? maxay kaa galabsadeen? wuxuuna ugu jawaabay, aniga miya Antonigii aad taqaaneen? waxaan ka aarsanayaa dadkii hore ii dhibaateeyey. waxaan ahay Valeria Damerel, milkiilihii hore ee gurigan aad degan tihiin. waxaan ku jiraa jirka Antoni. wuxuuna u soo dhaqaaqay dhankooda, wayna cabsadeen. si cod cabsi leh ku jirto ayay ku dhaheen, maxaan kuu samaynaa si aad u dhaaftid dilka? wuxuuna ku yidhi, waa in hal qof ka mida gurigiina aan nolosha dhaafiyaa si aan oga baxo jirka walaalkiin Antoni. Leo ayaa dhahay, aniga ayaa diyaar ah. Thomas ayaa isna soo booday, wuxuuna dhahay, Leo ha dilin ee aniga ayaa diyaar ah. balse hooyadood ayaa timid meesha, waxayna dhahday, ma awoodid inaad dishid ilmahayga, anigaa diyaar ah ee dil. wuxuuna sameeyey goobo ama xayndaab madow ah. wuxuuna yidhi, qofkii diyaar ah xayndaabkan ha soo galo, amase dhammaantiin igama badbaadaysiin. hooyadii ayaa nafteeda u hurtay si ay u badbaadaan carruurteeda. waxaana isku soo baxay dadkii xaafadda degnaa. Antoni asna way u soo laabatay maskaxdiisa, wuxuuna bilaabay inuu weydiiyo walaalihiis hooyadood wixii ku dhacay. waxaana looga sheegay sidii ay wax u dhaceen. waxaana laga raray gurigii ay degnaayeen, waxaana loo geeyay eedadoodii xaasidka ahayd. waxaan jeclaystay sheekadan aadka u dheereed inaan ku soo koobo halkan. waxaana qoray sheekadan qoraa. waxaan rajaynayaa inaysan run noqon. hadday run noqotana waa sheeko cajiib ah. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan, subscribe inoo saar, muuqaalkana like saar, qaybta hoose commentiskana inoola wadaag wixii fikriyo faalaha iyo dhiirigelina. inala wadaag fikirkaaga ku aadan sheekadan, iyo haddii aad jeclaystay inaan soo badiyo sheekooyinka noocan ah. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.